laba maalmood oo uu soconaya tababarkan ku saabsan ka hortagista dambiyada abaabulan ee isaga gudba xuduudaha ayaa ka qaybgalayaasha oo ka kala socda hay'adda socdaalka ee jinsiyadda, ciidanka booliiska, hay'adda sirdoonka qaranka iyo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha duulimaadyada waxay ku baranayaan sida dambiyada abaabulan wax looga qaban karo iyada oo dhinacyada ay khusayso ay sameynayaan iskaashi iyo wada shaqayn. agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka ee jinsiyadda Korneyl Maxamed Aadan Koofi ayaa sheegay in dambiyada abaabulan ee wax ka qabashada u baahan ay ka mid yihiin tahriibinta, ka ganacsiga maandooriyaasha iyo lacagta la dhaqo, isagoo xusay inay jiraan tallaabooyin dambiyadaasi lagu xakameynayo oo hore loo qaaday. dambiyadaas oo Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada ay aadka dhibaatada ugu hayso dalal badan oo caalamka ahna iyaguna ay aad maaragtay uga muujiyaan concern uga muujiyaan waxyaabaha ka gudba ama soo gala Soomaaliya xuduudaheeda. dambiyada abaabulan waa dambiyo ka dhaca meelo kala duwan, waa dambiyo ka dhaca siyaabo kala duwan, waa dambiyo saameyn ku leh hay'ado badan oo qaranka muhiim u ah, shaqooyinkooda saameyn ku leh oo ay ka mid yihiin hay'adaha amniga iyo immigrationka iyo maaliyadda iyo sidoo kale hay'adaha sharciga. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Generaal Bashiir Cabdi Maxamed ayaa ballan qaaday in booliisku xooga saarayaan wax ka qabashada dambiyada abaabulan oo dib weyn ku haya bulshada. adigu iska ilaali, adigaaga sharciga apply gareynaya ama xafiiska fadhiga iska ilaali oo adigu ha u gafi sharciga, yani adiga dib kuu soo noqonin ama power abuse ha noqoto, abuse gareyn powerka lagu dhiibay, ama musuqmaasuq ha noqoto ama nidaam darro ha noqoto, adigu laftigaagu iska ilaali. taas waxay keenaysaa maanta ciidan booliis oo yarin baa xabsida ku jira oo dambiyo kala duwan loo qabsado. in la helo sharciyo lagu xakameynayo falalka dambiyada abaabulan ah ayuu sheegay xeerlaaliyaha guud ee qaranka inay tahay wadada kaliya ee wax looga qaban karo falalkan dambiyada abaabulan ah, isagoona ugu baaqay xukuumadda iyo baarlamaanka inay dadajiyaan meelmarinta sharciyadaasi. markii shuruucda la sameeyo haddana waxa loo baahan yahay haddana si ay u dhaqan galaan waxyaabo badan oo kala loo baahan yahay. waxa loo baahan yahay MLA wax la yiraahdo oo ilaan dambigan dalal buu ka dhacayaa, u gudbaya dal buu ka bilaabmaya, dal kale ku dhamaanaya, dalal kale uu sii dhexmaraya hadduu rabo. dalalkaas oo dhan waa inuu ka dhaxeeyaa mutual legal assistance wax la yiraahdo ama iscaawinta xagga dambiyada iyo shuruucda la yiraahdo iska caawiya. wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale oo furay tababarka ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ku dadaalaan dhaqangelinta waxyaabaha ay bartaan, isla markaana la xoojiyo wada shaqaynta hay'adaha arrintan ku shaqada leh. in marka uu tababarka dhamaado aad practicaleysaan aan ku dhaqantaan waxaan ogaataan wadankeena burbur uu soo maray, laakiin hadda waan ka soo kabsanaynaa wax badan aan isbedelay. aad iyo aad ugu faraxsanahay maantana intaan iskugu timaaday iyadoo ka shaqaynayso dambiyada ama falalka xun sidii looga hortagi lahaa. Cumar Xasan Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.